Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Inta la xaqiijiyay dad ku dhow 10 ruux ayaa geeriyooday, halka dhaawacuna uu kor u dhaafayo ilaa 15 ruux kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo ku qarxay xero ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan guutada 27aad. Sida ay xaqiijiyeen waaxda gaadiidka gurmadka degdega ah, dadka dhaawac ah ayaa la geeyay isbitaalada gaarka loo leeyahay magaalada Muqdisho si loo dabiibo xaaladooda caafimaad, halka dadka dhintayna qaarkood goobta laga qaaday. Inta la xaqiijiyay 6 ka mid ah askarta ciidamada dowladda ayaa qaraxa ku dhintay ee bartilmaameedku ahaa, waxaana wararku inta ay ku darayaan in ay jiraan dad shacab ah oo goobta ka agdhawaa kuwaasi oo qaraxa uu gaaray isla markaasna qaarkood geeriyooday. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho, isla markaasna lala beegsaday xerada ay degan yihiin ciidanka xoogga dalka guutada 27aad ee 27 Abriil oo ku taala dhabarka dambe xarunta xisbiga iyo sidoo kale Stadium Muqdisho. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya oo ku saabsan faahfaahinta qaraxaasi. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi oo si weyn joogtiisa looga maqlay magaalada Muqdisho. Waxa ayna shaaciyeen in ay rabeen in ay ku wiiqaan awoodda ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, 13 bishii hore ee Julaay ayay ahayd markii qaraxan mid la mid ah oo kale uu ka badbaaday taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage, kaasi oo ka dhacay inta u dhaxaysa isgoyska Tarabuunka iyo isbitaalka xoogga dalka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir.